xilli 91% la dhammaystiray tirada guud ee xubnaha golaha baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliya shahaadan bixintoodu ay ka socoto Muqdisho laakiin ay jiraan tabashooyin ay qabaan dowlad goboleedyada qaarkood oo aan wali xildhibaanadoodu qaadan kaararka xildhibaannimo iyo shahaadada waxaa hadda muuqata 8 arrimood oo ay dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu kala iroobi doonaan dalkuna halis ugu sugnaan doono haddii aan bogsiime degdega loo helin qaarkood uma muuqdaan in la sixi doono waayuhuna uma noqon doonaan gusooro wanaagsan oo dib u hagaajiya 1967 Soomaaliya waxa ka dhacday doorasho lagu soo doortay xubnaha baarlamaanka inta badan qorayaasha taariikhda ka diyaariyay doorashadaas waxa ay isku raacsan yihiin ugu yeeridda dimuqraadiyaddii xulashada ahayd hadda Soomaaliya xulashada golaha cusub oo si siman u aafaysay guud ahaan dalka ayaa dhacday laguna soo doortay mudanayaasha dheer sugayaasha ah aan eegno 8 arrimood oo hadda xal u baahan 1 tayaxumada gudiyada doorashooyinka loo xil saaray iyo kala qaybsanaantoodu waa meesha ugu badan ee ay ka dhaceen qaladaadka doorashadani ka tagayso walina ay baaqi ku sii tahay waa aafo ay tahay in si degdega looga gudbiyo marxaladan go'aanna looga qaato 2 kala qaybsanaanta ba'an ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya midkoodna mid lama hadlin wax ka badan 90 maalmood mana jiro xiriir toos ah iyo mid dadban oo ka dhaxeeya ishaysigoodana waxa ay dhexgeliyeen dhammaan hay'adaha dawladda oo aan marnaba si fudud ku soo kaban doonin xataa dawlad kale oo timaada iskhilaaf kasta oo dhaca waxa la mari doonaa isla jidkan waa furidda albaab aan si fudud ku xirmi doonin dhinacyada jilayaasha ah ee bannaanka ka jooga xafiisaduna waxa ay dab ku sii shubeen nooc kasta oo khilaafkan ah 3 kala shakiga iyo is-aaminaad la'aanta waxa ay gaartay halkii ugu sarreysay taliyaasha ciidamada ee sarsare iyo xataa golayaasha dawladdu male xiriir midna midka kale ayuu iska ilaalinayaa taasi waxa ay sababtay in digniinta hay'adaha amniga xataa si siyaasadan looga dhexeego lana dhexgeliyo 4 damaca qariska xornimada ah ee siyaasiyiinta Soomaalida iyo ilaashashada danahooda gaarka ayaa ka dhigan mid sii socon doonta xoogaysatayna marxaladan siyaasi kasta oo leehan waxa uu xoogga saarayaa dantiisa mana eegaya dhammaan duruufaha taagan nooc kasta oo dhacdana siyaasaddiisa ayuu ka dhexeegayaa waana aragti aan la mahdin doonin 5 shisheeyaha ku loolamaya gudaha Soomaaliya shaki ma leh in dal kasta dana ka leeyahay dalka kale Soomaaliya waa ay ka sii xag jirtaa dhammaan dhinacyaduna waxa ay ku foogan yihiin sidii ay dantooda uga dhex fushan lahaayeen iyaga oo qalinka ama midida la adeegsanaya ay yihiin dhinacyada siyaasadda Soomaalida ee isla sagxadan ku foogan 6 si xoogaysiga kooxaha xag jirka ee Soomaaliya ayaa si muuqata u cad ilaa ay awood u yeesheen dhexgalka hay'adaha dawladda isku dayana fulinta howlgallo waaweyn oo halis gelinaya deganaanshaha guud ee dalka oo dhan helidda oo qareemayaal dahsoon kuwa muuqda iyo sii casriyeynta howlgalladooda ayayna u heleen faa'iido weyn 7 kumilanka hay'adaha amniga ee siyaasadda ma aha warin ama sheeko aan dhicin saraakiishii ugu badnayd ee ka shaqaynaysay howlaha amniga ayaa galay baarlamaanka 11aad iyo siyaasadda saraakiisha harayna waxa ay niyadda ku hayaan in ay iyana ka dhigtaan xilalka amniga ee ay joogaan jaranjaro ay ku gaaraan siyaasadda taas oo muujinaysa in saraakiishii khibradda lahaa ay doonayaan ka tegidda ciidamada waana mid muujinaysa in laamaha amnigu ay siyaasadda si buuxda ugu milmeen 8 shacabka Soomaalida waa cidda lagu dal dagaalamayo waxa ay noqdeen cawskii gubanaya ama xaabadii dabshidka ahayd waxa ayna la kala safan yihiin ologyada dhammaan ku loolamaya sida iyagu ay u heli lahaayeen ribix dhaqaale iyo mid siyaasadeed dibna iskuma weydiinayaan cidda iska leh halka lagu loolamayo iyo cidda ku dul dagaalamaysaba ugu dambayn 8 caqabadood waxa ay noqon doonaan kuwa Soomaaliya ay la joogi doonto ama la noolaan doona sanooyinka soo wajahan xataa doorashooyinka oo nabad ku soo gabagooba waxa ay ahaan doonaan kuwa si weyn reebid ay ugu samayso dawladda kasta oo timaadana ay la dhutin doonto ما تعجح inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay
markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda